أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود xaggiisa waxaa laga wariyey رضي الله عنه kaana wuxuu ahaa nabiyullaahi ilaahay nabigiisu sala allahu calayhi wasalama idaa waqtigii amsaa u galabaysto qaala wuxuu dhihi jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam amsaynaa wa amsa almulku lilaah walxamdu lilaah laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah. amsaynaa waan galabaysannay wa amsaa wuxuu u ahaaday almulku lahaanshuhu shay kasta la lahaado lilaahi ilaahay ayuu u ahaaday isagaa maalikulkulli ah. walxamdu xamdina lilaahi ilaahay buu u sugnaaday. laa ilaaha mid xaq lagu caabudaahi helitaanka dhexdiisa ma ahan ilallaahu ilaahay mooye waxdahu ay munfaridan xaaluu yahay keligii laa shariika xaal mid la wadaaga ilaahay ilaahnimadana lahu asaga uusan u sugnayn laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi. qaala raawigii xadiidka wariya waa ibnu mascuude wuxuu yidhi uraahu waxaa nabiga u malaynayaa sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi fiihinna ey macahunna alfaaddaas micigooda lasoo sheegay inuu yidhi lahulmulku walahulxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. oo dikrigii markaas wuxuu noqonayaa amsaynaa wa amsa almulku lilaah walxamdu lilaah laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahulmulku walahulxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. iyo inta ka dambaysa lahu ilaahay waxaa u sugnaaday almulku lahaanshaha walahu ilaahay waxaa u sugan alxamdu mahad wa huwa ilaahayna calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun mid awoodo wey. rabbigeeyow as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra maa shay khayrkii shaygaasoo fii haadihi middan dhexdeeda ahaaday alleylati ee hameenka ah wa khayra maa shay khayrkiina waa ku weydiisanayaa kaasoo bacdahaa leylada ka dambeeya. wa acuudu bika waxaan adiga kaa magangelayaa ilaahow min shari maa shay sharti shaygaasoo fii haadihi middan dhexdeeda ku sugan alleylati ee hameenka ah iyo wa shari maa shay sharti kaasoo bacdahaa leylada kadib ahaaday. rabbigeeyo wacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkasali wehsida oo cibaadaadkii iyo laga wehsado wa suu'i lkibri iyo kibirkii iyo isla weynanka xumaantiisa ba'doo la reebo kibri waa badarkii qooqii weeye haddii kibar la yidhaahdana zamaanadiiyay noqonaysaa oo ba'da la kordhigo. wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min cadaabin cadaab xaggii cadaabkaasoo fi naari naarta dhexdeeda iyo wa cadaabin cadaabkaasoo filqabri qabriga dhexdiisa. ducadaas ayuu akhri jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam galabnimada. wa idaa waqtigii asbaxa uu waa bariisto qaala wuxuu dhihi jiro ku qowli jiray daalika dikrigaas lasoo xusay oo dheer aydan noqoshee sidii uu galabtii u akhrinayey ayuu subxiina u akhrinayey laakiin wuxuu ku beddelayay amsaynaa wa amsa almulku wuxuu ku beddelayey asbaxnaa waan waa bariisannay wa asbaxa almulku lahaanshuhuna wuxuu u ahaaday lilaahi ilaahay. alfaadda soo hartana waa isku mid. marka waqtiga uu joogo ayuu tacbiirkiisa markaas cabiraya. hadduu galab joogana wuxuu leeyahay amsaynaa wa amsa almulku. haddii uu joogo subaxna asbaxnaa wa asbaxa almulku. inta kalena waa isku mid. rawaahu xadiidkaas waxaa wariyey muslimun imaamu muslim raximahullah. وعن عبد الله بن خبيب عبد الله بن خبيب حقيسه waxaa laga wariyay maqru'an hal lagu akhrinayo wawaha magaciisa aabaha magaciisa bidamil kha'i
خاد المعجمة إلا دبعي خبيب عبد الله بن خبيب ضبط قيس سداس وي رضي الله عنه قال وحير عبد الله بن خبيب قال لي وحواني يقول النبي نبي صلى الله عليه وسلم اقرأ أغري قل هو الله أحد سورة الإخلاص والمعوذتين هي لبدا معوذتين كلا يراهدوه المعوذتين وقال الهوس ديغو معوذتين لبدي wax magan gelinaysay waa labada suuradood oo quraanka ugu hooseeya suuratul falaq iyo suuratul naas saddexda suuradood akhri buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam xiina waqtigii baad akhrinaysaa Abdullah ibn Khubaybow tumsi aad galabaysanaysid galabnimada iyo waxiina waqtigii tusbixu aad waabariisanaysid ثلاث مرات صدح جيراد أخرينيسا صدح ذا سورة دوت يا مارك تيتيبا صدحت كأخرينيسا وين تكفيك ويكا كافينيسا غير ذا سلسوح سي يعني رياض كاسلسوح شيء يا وحي كافينيسا من كل شيء شيء كستا أي كافينيسا حقيسي يعني سبب يكون نغنيسا إله كافينيسا سبحانه وتعالى waxyaabaha marka ilaahay lagu magan galo ayaa suuradahaasi kamid yihiin rawaahu xadiidka waxa wariya Abu Daawud wa Tirmidhi wa qala xadiithun hasan sahih wa an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sayyid Uthman waxa laga wariyay qala wuxuu yiri sayyid Uthman qala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam rasuulka ilaahay wuxuu yiri ما من عبد أضون مجره أضون كاسو يقول يراهده في صباح كل يوم مالين كست سبح هذا ومساء كل يوم ومساء كل ليلة يهمين كست قلبتيسا قف يراهده مجره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله إلهي مقعيسا أيام كل أرسانيا الذي اسمك الذي عليه لا يضر سندبين مع اسمه مقعيس معقيس شيء قاسو في الأرض للك دعديسا ولا في السماء سمد دعد شيء أو سندبين وهو إلهينا السميع إله مغلوي وحو البال عليم وحو البنأك 3 مرات صدح جير وفي راهي مجره صبحي أما قلبتي إلا هدي أوجره لم يضره غفك سمرب شيء مضراتك يا مؤذياتك يا وح الله وحدب يودن يا حالتك استو جوجو إلهي كالدفاعية سبحانه وتعالى ذكر قاس أو أغريي فضل قيسة يا خير كيسة وبشارات وين ذكر بدن معهن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رواه حديث كوحوري أبو داود وترمذي وقال حديث حسن صحيح باب هذا متكان باب وهي باب كاسو معقود لو قنتي فيما في بيان ما ذكر العدينتي ذكر كاسو يقوله أو قوله الإنسان إنسانكو عند النوم عند إرادة النوم هردد دونستيد أكتيدا مركو ربينو السيحدو قفك مؤمن كذكري قال ربينو وآخريو وسيداس باركتي وكن نقضى مركز نقف ذكري إلهي كن سيحدي أيو بابي هاي قال الله إلهي وعير تعالى سرية إن في خلق السماوات سموين كالابورستودا iyo wal ardi dhulka la abuuristiisa labadaas dhexdooda waxa ku sugan iyo waqtilaafil leeyli habeenka iyo wanaari maalinta iskhilaafidooda oo midna ay ifayso midna maaragtay ay mugdi leedahay laayatin tusaalooyin baa ku sugan dalaalaad weyn aayaadkaas oo lil albaabi aqliyaasha kuwa u saaxiibka u sugnaaday oo ilaahay waxdaaniyadiisa iyo awoodiisa iyo nasahnaantiisa iyo inuu ku sifoobay kamaal kasta kana nazahan yahay nuqsaan kasta tusinaya alladina ulul albaabki yadhkuruna allaha ilaahi xusayaan qiyaman xalayhin kuwa taagan wa qu'udan xalayhin kuwa fadhiya wa ala junubihim wa mudajji'ina xalayhin kuwa u jiifa ala junubihim dhinacyadooda aayadu waxay tusinaysaa xaalad kasta oo qofka muuminka ah
inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiraado oo ilaahay uu xuso marka waqtiga jiifka axwaasha ka mid ah oo baabka loo guntay weyn. وعن حذيفة حقيسة وحلق وري وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله إلى رسولك صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا وقتك أواء أضنمه أو يصقل إلى فراشه قشيسا قال وحده جري النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله عند إرادة النوم باسمك اللهم أحيا وأموت باسمك مقعاك ربيو اللهم يا الله يا نحيا كنا لهي وأموت كنا دمانيا كلمات كاسينو استعمال مركو سيحانيو أيا سنة ونبي لقسو قوريي صلى الله عليه وسلم وفعل كي نبي صلوات الله وسلامه عليه رواه حديثك وحوري البخاري وإمام البخاري. وعن علي سيد علي عقيس وحلق ويري رضي الله عنه أن رسول الله إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم قال وحو رسولك إلهي كيري له سيد علي ولفاطمة حاسكي سيد علي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما سيد علي فاطمة بالله كراض النغضة وحو كيري إذا وقتك أويتما أضد منطان إلى فراشكما قوشين أو أما سيدا أخذتما مركز قادتان مضاجعكما مكان جيفياشين أو تيحان إيسان فكبرا كبارتا 33 صدن وصبحا إلهي النزه أو تصبح صدى 33 صدن واحمدا إلهي كحمدية ممكو أكردقان يهي واحمدا إلهي كحمدية 33 صدن جير وصدح ميلود ومن صدن صدحة وكبار تصبيح حمدي. وفي رواية دحديدنا وحاكو سقناي التصبيح تصبيح دي باكو سقناد 4 حالة 34 صدن. وفي رواية كلنا وحاكو سقناي التكبير كبارتي 4 حالة 34 صدن. marka labadaas riwaayadooda riwaayadan ka bedelano riwaayana kibaartay ka dhigtay 34 riwaayana tasbiixday ka dhigtay 34 riwaayadii horena saddexdooduba waxay ahaayeen min 33 jeer muttafaqun calayhi. dikrigaasina waa dikri asaguna markii qofku uu seexanayo inuu akhriyo loo baahan yahay oo kibaar iyo tasbiix iyo xamdi ilaahay ah. وعن أبو هريرة عقيس وحلق وري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي وحان كجرنا أن أذابتي هردد مرك الله سيحانيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقتك أواء أدنمو أحدكم غفكين إلى فراشه قوشيسة وماشو سيحان لها أما قول دلتا لها تما سريرها هاته markii axadkiin u dunmo firaashkiisa gogoshiisa falyanfud ha jafo firaashahu gogoshiisa ha ku jafo bidaakhilati izaarihi hoosguntigiisa daraftiisa hoosguntiga marada darafkeeda ayaad ku jafaysaa maxaa yeelay gacantaada haddaad ku jaftay waa intaasoo bahaliya wax ku qaniinaan fainahu muxuu jafayaa fainahu axadku laa yadrii ma oga ما شيغاسو خلفه أساق أصو دوامري عليه فراشك كوركيسة وحو قدم بيي ما أوغا وحلقا يابا حلق غنيني لها إنو كرسارين يهي قوشا اسكجف مركا ثم مركا سو جفو كدب يقولوا حوليه يغفك أسربا ساحدو باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه باسمك مقعاقان ربي الله وضعت كدجي جنبي أنيق دينعيقا وبك ودادان أرفعه كوريا ليا جنبك دينعا إن أمسكت هداد قبستي دود هيسيد نفسي نفس الديدة وإلهي يوم عمري وكويقيا انتاس فرحمها نفتي دون حريصو وإن أرسلتها
haddii aad dirtid naftaydana oo weli cumrigaygii wax ka hareen faxfadhaa ilaahu ku xifdi bimaa shaygaasoo taxfadu aad ku xifdisid bihi shayga cibaadaka addoommihii alsaalixiina ee wanaagsanaay oo saalixiinta ahaa. halkan waxaa laga qaatay xadiidkaas addoommaha ilaahay inay ka mid yihiin kuwo saalixiinahoo maxfuudiinoo ilaahay ka xifdiyo macaasida iyo mu'diyaadka intaba. muttafaqun calayhi. wa can caa'ishata umuna caaisha xaggeeda waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa anna rasuula allaahi ilaahay rasuulkiisu sala allaahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa akhada markuu qaato madjacahu jiifkiisa nafasa wuxuu ku tufi jiray ku afuufi jiray fii yadayhi ay fii kaffayhi labadiisa calacalood dhexdooda ayuu ku tufayey. wa qara'a wuxuuna akhrinayay bilmucawidaati suuradaha wax magangeliya ayuu nabigu akhrinayay sala allahu calayhi wasalama. waa suuratu likhlaas iyo suuratu lfalaq iyo suuratu nnaas min baabi taqliib ayaa mucawidaad loo yidhi, laakiin mucawidataynay ahaayeenoo labada suuradood oo ugu hooseeya ayaa tacawudku ku jira oo qul acuudu birabbilfalaq iyo qul acuudu birabbinnaas ka bilaabanaya. haddana waxaa lagu daray suuratulikhlaas. saddexdaas ayuu nabigu akhrinayey, gacmihiisuna ku tufayey. wa masaxa bihimaa labada calacaloodna wuxuu ku masaxayay jasadahu jirkiisa. muttafaqun calayhi. waa sunno. wa fii riwaayatin riwaayana waxaa ku sugnaay riwaayadaasoo lahumaa bukhaari iyo muslim u sugnaaday anna nebiya nabigu sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa awaa markuu u dunmo ilaa firaashihi gogashiisa kulla leylatin habeen kasta jamaca wuxuu kulminayay kafayhi labadiisa calacalood uma nafatha markaasuu afuufayuu ku tufayey fiihimaa labada calacalood dhexdooda faqara'a markaasuu wuxuu ku akhrinayay fiihimaa calacalaha dhexdooda qul huwa allaahu axad wa qul acuudu birabbilfalaq wa qul acuudu birabbinnaas. uma markaas ka gadaalna masaxa wuxuu marinayo ku masaxayay bihimaa labadiisa calacalood mastadaaca wuxuu awoodo min jasadihi jirkiisa xaggiisa. yabda'u xaal uu ka bilaabayo bihimaa labada calacalood wuxuu ku bilaabayaa calaa ra'sihi madaxiisa iyo wa wejhi wejigiisa iyo wamaa makaankaasoo aqbala soo qaabilay kaasoo min jasadihi jirkiisa xaggiisa. yafcalu wuxuu samaynayay nabigu sala allahu calayhi wasalama tufiddaas iyo akhrintaas iyo marmarintaasba 3 maraatin. yafcalu daalika kaasuu samaynaya 3 maraatin 3 jeer oo qofku markuu seexanayo 3daas suuradood inuu inta akhriyo calacalihiisa ku tufo markaas jirkiisa intuu ka gaaro uu marmariyo. waa sunno nabiga laga soo gaaray sala allahu calayhi wasalama, qofkana xifdiyay jirkiisa u noqonaysa. muttafaqun calayhi. wuxuu yidhi imaamu nawowi raximahullah qaala ahlu luqadda ehelkeeda dadkaihi waxay yidhaahdeen oo kelimaadka mufradaadkooda fasira annafhu nafahadii oo ficilka ahayd masdarkiisii weeye, ficilka xadiidka ku jiray masdarkiisii weeye. annafhu nafhigu nafkhun waa afuufid kaasoo ladiifun fudud kaasoo bilaa riiqin candhuuf la'aana. marka afuufid yar weeye macnuhu, sida hadda uu sheekhu ku sharxay marka la fiiriyo. nafatha wuxuu afuufay fii yadihi yaa macnuhu noqonaya. وعن براء بن عازب وحلق وري رضي الله عنهما قال وحير براء إن رسول الله إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم قال وحير إذا وقتك أخذت أدغالت مضجعك مكان جيفك يعني مركز ربتدين سيحتد فتوضأ ويسيسو وضوءا ويسو كوضوئك ويسدديو كلا أهل الصلاة صلاة ويسيستد ويسي كاملة ويسيسو ثم مركز كقدالنا إضجع أجيفو على شقك دينعاقا الأيمن مديك دنك مديك أدو سيحانيسا مركز سوي سيستيد كدب ثم قول مركز كدب وحاتي راهده وذكري وآخرين لها اللهم يا الله إلهي وأسلمت وحنوه قامي وجهي وجهي إليك هذه انتكاه
وفوضت وحان بندقي أمري أمركي إليك أدق انتكاه وألجأت وحان عسكي ظهري دوركيك إليك أدق انتكاه يعني لا هي عسكي يعني وانو عسكدي دشادا عسكدي ويه رغبة لأجل رغبة جعلانشو إليك إلى ثوابك أجركاك أن جعلهي ورهبة يا عبسي من عقابك عقابك أن كعب صنايو لا ملجأ مكان مغنقل ولا منجا إيا مكان بدبادد ملقو بدباده منك من عذابك عذابك حقي سالك بدباداي مجرو إلا إليك أديك حقا ماهانه إن أدوك بدبادي سيد مويانه أحد كلو بدباد إياه إلهي يوم مجره آمنت وحان رمي بكتابك كتابك إلهو الذي كتابك أنزلت سود الجسي وبالنبيك نبيك ورمي الذي نبيك أرسلت صادرتي sidaas inuu yiraahdo dhikrigaas akhriyo markuu weesaysto dhinaca midig u seexdo kadib sidaas oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu amray bara ibn Aazib wuxuu kaloo ku yiri waj'al kayalhunna kalimaadkaas erayadaas waxaad yeeshaa ood ka yeeshaa min aakhiri kalaamika hadalkaaga kan ugu dambeeya xaqiisa sida ay xusnul khaatima kuugu noqoto liyakuuna khatman hasanan waxa ugu dambeeyo aad ku hadashid ka dhig kalimaadkaas aad ilaahay rumaysay aadna isu dhiibtay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo nabigiisa aad rumaysay fa in mutta haddaad dhimatid min laylatika habeenkaaga iyo xaggiisa habeenkaas aad ducadaas akhrisay oo sidaas aad ku dhimatid mutta waad dhimanaysaa walxaal anta aduguna cala alfidrati diinta islaamka korkeeda aad ku sugan tahay adoo maaragtay diinta islaamka haysta ayaad dhimanaysaa marba haddii aad maaragtay aadaabtaas aad samaysid nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri raawigii xadiidka wariyay bara ibn Aazib weeye faradadtuhunna waan soo celceliyay buu yiri erayaadkaas waan ku laalaabtay liastadhkirahunna si aan u xasuusto oon u xifdiyo faqultu markaasaan waxaan iri buu yiri آمنت برسولك ماشي ذكرك أوهاي وبنبيك الذي أرسلت أيام وعن ربو يري آمنت برسولك رسولك كان رمي الذي رسولك أرسلت صدرت واللفظك النبي ويشاقي صلى الله عليه وسلم وبنبيك أوهاي رسولك كان كبدلي بو يري قال مركز النبي يري صلى الله عليه وسلم قل له آمنت بنبيك وعن رمي النبي الذي النبي أرسلت صادرت واللفظ هبدلين متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا وقتك أواء أودن إلى فراشه قوشيسا قال النبي وحدي جري صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافية ولا مؤوية الحمد حمد لله إلهي بوسقنا دي الذي أليه أطعمنا نقوديي وسقانا ونورابيي وكفانا نكافيي وآوانا نضمي فكم إن بدنوا ممن شخصيه يا لا كافية مد كافية له أسقى أوسنو سقنين ولا مؤوية مد ضمان أوسنو سقنين sidaasna nabigu waa akhri jiray sallallahu alayhi wasallam xadiidka baabka ugu dambeeya waa can Xudayfa xaggiisa waxaa laga wariyay radiyallahu anhu anna rasuulallahi ilaahi rasuulkiisu sallallahu alayhi wasallam kaana wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yarquda inuu hurdo wadaca wuxuu ku deji jiray yadahu gacantiisa alyumna ee midig taxta khaddihi dhabankiisa hoostiisa ثم يقول وليه جري نبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله قيني إيغا إلاله عذابك يوم مالين تتبعث وتصبحين يسيد عبادك ضمها أذكرت مرك الله أخري ومرك الله سيحانا يكمتعي مرك الله بشيب وحديث كانت المام إياه وفكو مركو سيحانا إياه إنو مارك تيقعنت مديق بركضه
وسنة إنه دميدك توسع حدان إن سنة حديثك هران كسو مرني إنه دعاء أخريانا وسنة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم يا الله إلهي وقني إلالي عذابك يوم ما لنت إلالي عذابك تبعث وصوصاري سيد عبادك ضمها رواه حديثك وحورية ترمذي وقال وحنير إمام ترمذي حديث هو حديث حسن وناكسا ورواه وحكى حديث كورية أبو داود من رواية حفصة أيوك ورية رضي الله عنها وفي حديث حفصة رواية هذا حديث كيسا وحاكسوغا أنه نبي كان وحوها يقول مجر هذا ذكر قاس اللهم غني عذابك يوم تبعث عبادك وحوله جري 3 مرات صدح جر وكوع العلي جري نبي صلى الله عليه وسلم marka adkaartii ma'suurada ahayd oo la soo guuriyay oo nabiga qowlkiisa sallallahu alayhi wasallam iyo ficilkiisa lagu soo guuriyay xadiidkaas ayaa ugu dambeeya inta sheekhu halkan uu isugu keenay ilaahayna nagu anfaco subhanahu wa ta'ala wallahu